wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee qubanaha VOA-da. barnaamijkeena oo idinla socodsiinayaan anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed waxa qodobada aan idinku hayno kamid ah. xerada qaxootiga Dadaab oo sugaysa in albaabada loo laabo maxaysan la kulmaan Soomaalida laga celiyo warbixin gaar ah oo ay VOA-du ka diyaarisay ayaanu idin haynaa. adeegsiga al-shabaab ee waxyaabaha qarxa ee IED-da loo yaqaano iyo caqabadaha AMISOM ka haysta. dadaallo ku aadan diiwaangelinta codbixiyaasha muhaajiriinta ee doorashada Mareykanka oo ka socda gobollo ay ka mid tahay Ohio. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. dowladda Kenya oo cudurdaar ka dhigaysa walaaca ay ka qabto dhinaca amniga ayaa muddaba qorsheynaysa inay albaabada u laabto xerada qaxootiga ee Dadaab dhamaadka sanadkan. Dadaab waxa ay hooy u tahay ku dhawaad 300,000 oo Soomaali ah oo badankood colaadaha iyo abaaraha Soomaaliya ka jira ka qaxay. dadkaasi qaarkood ayaa waxa ay ahaayeen kuwo horey loo celiyo kuwo kalena waxa ay sugayaan in la celiyo. VOA-da ayaa haddaba warbixino gaara ka diyaarisay dadka Dadaab ka soo tagaya iyo halka ay tagayaan. aan ku horeyna wariyaha VOA-da Jill Creek oo warbixintan ka soo dirtay Dadaab. halkani waa gegida diyuuradaha ee Dadaab. dadkani waxay ka tagayaan meesha kaliya ee ay 10 sano yaqaaneen. Soomaaliya waxay ku mahmahdaa nin ku sheegtay lagama sheegto maadaama dawladda Kenya ay naga sheegatay unakana kooda aan soo sheeganay in haddana iidan nagu aga juglayso inaan ka guurna go'aan ku gaarno Soomaalidana. diyuuradahani waxay dadka u qaadayaan Muqdisho ha yeeshee dadkii Jubbaland ku noqonaya waxaa la joojiyay bishii Agoosto kadib markii maamulka uu sheegay in aanu qaadan karin dad cusub. qaar ka mid ah qaxootiga u socda Jubbaland ayaa xeradan ku sugaya. waxay sheegeen inay durbadiiba iibiyeen ama wareejiyeen guryahoodii iyo wixii ay haysteen. saraakiisha xeryuhuna ay ka qaadeen waraaqahoodii aqoonsiga markaasina ay yihiin kuwa xayiran. maxamuud cali cabdi waxa uu Dadaab yimid markii la furay sanadkii 1990 isagoo rabshadaha Muqdisho ka soo cararay. waxaan jecelnahay meeshaan hadda qaxootiga dib ugu noqon meelaan ku noqonaba male. guryihii waa la biliqaystay carishay ahayn carisadii qoryihii waa la wada kala qaatay meel aan ku noqon male. haddii lidima qaadahayna yiri waxaan jecelnahay dadka qaar sida Maxamed Cabdullaahi Jimcaale oo 24 jir ah weligii ma arag Soomaaliya. uma dareemayo in go'aanku uu u wanaagsanaa qof anigoo kale ah kaasi oo ku dhashay xeryaha. ma doonayo inaan tago waxaan doonaya inaan Kenya joogo xitaa haddii nala khasbo. halkan ayaan rabaa inaan ku dhinto anigoo Kenya soo arka. Cabdullaahi Maxamed Aadan waxa isagu Soomaaliya ku noqday bishii May si uu soo eego. waxaan tagay Jubbaland aan tagay meeshaan tagay degmada horta annaga aan u jeedno meel la tagi kara maaha waa meel hadda oo dawladda aysan ka talinin oo ay gacanta ku haystaan dad kale qolooyinka kale gacanta ku haysta ha ahaatee meelihii aan hadda nagala dejiyay Jubbooyinka nagala dejiyayna waa meel dee aan lahayn nabadgelyo aan lahayn caafimaad aan lahayn waxbarasho aan lahayn biyo lacab aan lahayn. hase yeeshee hubaal la'aanta ka jirta mustaqbalka xeryaha ayaa raad ku yeelanaya dadka go'aansaday inay xeryaha Dadaab sii joogaan. waxaanu dareemaynaa in aanu maaragtay aanu xoolaha iyagu iyo waxa iyagii ay riski ku jiraan oo macnaha aadan alaab keeni karin oo aanan alaabadii keenin. marka laga yimaado xaaladaha ka jira Dadaab waxaa laga helaa waxbarasho caafimaad lacag la'aan iyo weliba amni. Soomaaliya inaan ku laabto diyaar ma yahay ilmaha waxay barta diyaar uma yahay inaan hadda Soomaaliya ku laabto laakiin waxaa jira dad badan oo niyad kacay oo rabo inay ku laabtaan wadankoodii hooyo oo doorbida. hase yeeshee kuwa go'aansaday inay Muqdisho tagaan ayaa iyagu diyaar ah. waxay qaateen $150 oo gacan qabsi ah lacagtaasi oo hay'adda UNHCR ay siisay. diyuuradii ayay fuuleen waxayna ku noqonayaan hubaal la'aanta dalkooda hooyo ee Soomaaliya ka jirta. inkastoo mashruucan dadka lagu celinayo uu ku yimid heshiis 3 geesood ah oo ay wada gaareen dalalka Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa haddana dadkaasi ay ka cabanayaan iyagoo aan helin adeegyadii nolosha aasaasiga u ahaa ee ay u baahnayeen marka ay Soomaaliya ku noqdaan. wariyaha VOA-da Jason Patinkin
ayaa tegay magaalada Kismaayo oo ay in badan oo ka mid ah dadkii ka noqday Dhadhaab ay ku tabaalaysan yihiin. Warbixintan ayuuna nooga soo diray. sanadkii hore dad kor u dhaafaya ilaa 16,000 oo qaxooti ah oo xerada Dhadhaab ka soo noqday ayaa tegay magaalada Kismaayo. dadkaas qaarkood ayaa sheegay inay u noqdeen kadib markii ay hay'adaha gargaarku kaalmadii ka goosteen. hase yeeshee markii ay magaalada yimaadeen kuwa aan qoysas kaalmeeyo haysanin waxay degeen xeryo aad u cidhiidhi ah. xubbi cabdulaahi aadan waxay Dhadhaab ku jirtay muddo 25 sano ah. waxay sheegtay inay ka qoomeynayso inay Soomaaliya ku noqotay. ballanqaadyo fara badan aad bay u jireen. ballanqaadyada waxay ahayd inay hoy nolol dhisaayo, inay alla ilaahay saddexda nolosha oo lagu nool yahay musqula ma haysano hadda, oo biyo ma haysano, oo alla ilaahay ma haysano hoy. ballanqaadyada iyona si aar ma haysano, alla ilaahay wixii akhriska carruurta ay ku akhrisaneed ama dawo annaga aan nagula daaweyni lahaa, alla ilaahay oo nolol hor ugu socon lahayd ama aan ku ganacsan lahayn, ama alla ilaahay wixii lagu qabsanay bil'aadnimada lagu qabsanay aynu ku qabsan lahayn wax aan nala siiyay malaha. walwalka ugu weyn ee xubbi haysta waa waxbarashada 7 carruur ah. 6 ka mid ahi waxay ku dhasheen Kenya. waxay sheegtay in Kismaayo aanay lahayn iskuulo fiican. wallaahi intii alla ilaahay li celinayo inaan Kenya ku noqdo aad aan ku noqdo iskuuladooda u celiyo waan rabi lahaa, laakiin hadii daruufta iyo masaamaxiiso. dhibaatada ka jirta Kismaayo waa in adeegyada dadweynaha oo cashuur badan la saaray dartood ayna magaaladu awoodi doonin in ay dad badan martigeliso. magaalada oo si ahaan nabad u ah ayaa haddana martigelisa 40,000 oo barakace, kuwaas oo ka soo cararay dagaalada iyo abaaraha meelo Soomaaliya ah ka jira. dad dheeraad ah ayaa weli soo gaadhaya maalin walba. Aweys Axmed Cabdi waa howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay'adda American Refugee Council. maalin walba dadka soo noqonaya way sii badanayaan, baahiduna way sii badanaysaa. marmarka qaar maalin walba waxaa ku imanaya 100 bukaan, marka baahida ayaa ka badan waxa aan haysano. hadda maamulka Kismaayo ayaa hakiyay in dad kale soo noqdaan ilaa bulshada caalamka iyo dadweynaha Soomaaliya ay ka buuxinayaan baahiyaha dadka hadda ku jira xeryaha barakacayaasha. hase ahaatee Axmed Maxamuud Abuukar oo ah gudoomiyaha qaxootiga Kismaayo ku soo noqday ayaa sheegay in Kenya ay joojiso in xeryaha Dhadhaab ay xidho. dawladda Kenyana waxaan runtii way mahadsan yihiin intii nahayeen. waxaan ka codsanaynaa inay dadka walaalahooda ay magaranaysa deriskana yihiin 22 sano ay hayeen inaysan maxaan ku dhahdaa cimri tagay ceeb laguma sogootiyaanu maamaha Soomaaliya aan idhaahnaa. waxay maadaama 30 sano dadka hayseen dadka ma garanaysaa inaad sidaad u hayseen u deysaan ilaa dhulkoodu inta uu ma garanaysaa maamulkii iyo dawladooda cagaha ay dhiganayaan. hase yeeshee uma eka in dadka soo noqday ay haystaan fursadda ah in Kenya ay dib ugu noqdaan. bambooyinka gacan ku samayska ah ee IED loo yaqaano ayaa noqday hub ay aad u adeegsadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyagoo u adeegsada ciidamada iyo bartilmaameedyada rayidka. wariyaha VOA-da Jason Batinkin oo sidoo kale tagay Muqdisho ayaa si raaca ciidamada AMISOM oo ka howlgal ka sameeyay duleedka magaalada Muqdisho iyagoo baaraya walxaha qarxa. warbixintan ayuuna nooga soo diray. ciidamada midowga Afrika ayaa gaafureeb ku sameynaya tuulo ku taala duleedka Muqdisho. waxayna nadiifinayaan waxyaabo qarxa oo ay Al-Shabaab jidka dhinacyadiisu ku aastay. ujeedadooda waxay tahay inay helaan bambaanooyinka oo ay qarxiyaan ama ay furfuraan ka hor inta aysan qarxin oo aysan waxyeelo geysan. ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa Al-Shabaab ka xoreeyay inta badan magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya, laakiin kooxdu weli waxay sii wadaa weerarada iyagoo adeegsada waxyaabaha qarxa. Major General Nakibas waa taliye ku-xigeenka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. IEDs are the biggest threat. bambaanooyinka IED-da ee macmalka ahi waa halista ugu weyn ee hortaagan howlgalkan ka dhanka argagixisada. Al-Shabaab waxay awoodaa inay khibradooda isugu geeyaan farsamaynta waxyaabahan qarxa oo ay waxyeelo weynna geystaan. ciidamada oo keliya ma ahan ee dadka rayidka xitaa waa la beegsadaa waxyaabaha qarxa. qaraxyo loo geystay hoteeladan bishii Agost waxaa ku dhintay 22 qof. sanadkan 2016 ayaa ahaa kii ugu badnaa ee bambaanooyinka noocan oo Al-Shabaab adeegsato. waxayna u adeegsadeen ilaa 225 weerar sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay hay'adda Sahan. bambaanooyinkan ayay Al-Shabaab kordhisay culeyskoodu ilaa 80 kilogram. adeegsiga bambaanooyinkan wuu isbedelay, waana nuucyo kala duwan. baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa, kuwo sida miinooyinka loo sameeyo oo dhulka la geliyo, iyo kuwo birqabato leh oo baabuurta lagu dhejiyo. waxaa kaloo jira kuwo meelaha fogfog laga hago. marka
noocyadan oo isbiirsaday waa caqabad weyn. bambaanooyinka noocan waa kuwo ay al-shabaab miciinsato waayo si fudud ayaa loo samayn karaa waxaana laga sameeyaa baaruudda hubka duugga ahi iyo rasaasta madaafiicda marka ayaa lagu xiraa leeb uu hagayo telefoonka gacanta si waxyeellada ay geysanayaan loo kordhiyana waxay ku daraan masaamiir biro gogo'an iyo biraha kushaneetooyinka waxa keliya ay dibadda ka soo dhoofsadaan ayaa ah qarxiyayaal si qarsoodiha looga keeno waddanka yemen sida ay sheegeen taliyayaasha amisom iyo khubaro madax bannaan. dalkan maraykanka waxaa socda dadaalada la xidhiidha sidii dadka muhaajiriinta ah looga dhaadhicin lahaa inay codaynta isu diiwaangeliyaan una soo baxaan maalinta doorashada ee 8 Noofembar. meelaha uu dadaalkaasi ka socdo waxaa ka mid ah gobolka sida aadka loogu bartamo ee Ohio. wariyaha VOA-da Caroline Bersuti ayaa dhowaan tagtay Ohio warbixintan ayayna nooga soo diyaarisay. Batula Muuse ma gaarin waqtigii ay codayn lahayd. haddana way og tahay ahamiyadda ay leedahay in la codeeyo. dadka muhaajiriinta ayaa laga doonayaa inay codeeyaan. codkiinnu waa muhiim. iyada iyo kooxdeeda waxay garaaceen albaabada ilaa iyo 60 guri oo ku yaala magaalada Columbus gobolka Ohio. hal qof oo kaliya ayaana isdiiwaan geliyey. xitaa salaadaha jimcaha muslimiinta waxaa lagu booriyaa inay isdiiwaan geliyaan. sidaa daraaddeed Xaliimo Maxamuud waxay codayn doontaa markii ugu horreysay nolosheeda. haddii aad doonaysa inaad isbeddel samayso waa in tallaabada ugu horreysa aad adigu qaadaa. magaalada Cleveland kuwa doorashada abaabulaya waxay dadka u yaboohayaan rooti lacag la'aana. Gilbert Ruiz waxa uu leeyahay waxay doonayaan damaanad qaad. haddii aadan waxba ii qabanin buu yidhi kuma soo baxayo si aan kuugu codeeyo. dadaalka diiwaangelinta waxaa kaloo uu ka socdaa deegaanka ay degan yihiin dadka Aasiya ka soo jeeda. Terry Wong waxay taageersanayd musharaxii haray Bernie Sanders. xitaa ololihii Sanders dadka laga tirada badan yahay oo dhan waa la diiwaan geliyey. laakiin mar walba waxaa la ilaaway dadka Eeshiyaanka. waxaan doonaynaa inaannu helno codka aannu leenahay. caqabadda kale ee hortaallana waxay tahay sidii ay u tegi lahaayeen goobaha codbixinta. Richard Exner waa qabiir ku takhasusay falanqaynta macluumaadka wuxuuna isha ku hayaa tirada codbixiyaasha. siday u codaynayaan iyo inta isu soo baxaysa waxaan ogaan karnaa buu yidhi maalinta doorashada maadaama ay mujtamaca muhaajiriintu aad u kordheen. mujtamaca muhaajiriinta ee Ohio waxaa lagu qiyaasaa 8% dadka gobolka oo dhan. tir ahaan weli way yar yihiin laakiin ra'yi baaris dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in labada musharax ee doorashada ku baratamaya Hillary Clinton oo dimuqraadiga ka soo jeeda iyo Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga u baratamaya ay barbarac yihiin. waxaase khubaradu ay leeyihiin dadka muhaajiriinta ah codadkooda ayaa gobolka u ridi kara dhinac marka doorashada la gaaro. dooda murashaxiinta madaxtinimada ee Mareykanka ee toddobaadkan waxaad ka daalacan kartaan boggeena internetka. intaasina waxa aan ku joojinaynaa barnaamijkeennii qubanaha VOA-da ee toddobaadkan. barnaamijkeena waxaad mar kasta ka heli kartaan boggeena internetka ee voasomali.com iyo bogga aan ku leenahay Facebooka. haddaba inta aan toddobaadka dambe dib u kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.